buug baa maalin waxaan ka akhrinayay wadanka la yiraahdo Israa'iil ama Yahuuda soo ma taqaanaan Yahuuda wada garanaysaan ilmahooga yar inta aanay iskuul geynin ee aanay waxba barin waxa ay baraan quraanka qisada ma haysan Yahuudu ilmahooga quraanka baraan صدق كجسبي بران كتابك آخرين وين يابي مركا شيخ كتابك قرأ وحو سيد لقي آخر استوى لقي يابي إنها تسوي ديسو واي سببته وحويان قفكو هدو قرآنك حفتيو صدق كجس حفتيو وحي آمن سيهين قرآنكو متشابه ومحكم قرآنكو ويسكو إيجاجي هاي يعني قفك صدق كجس قرآن حفتيا وحكستو دنيا يا لو حفتي كرا مسكح دي سوينانسا إلهي با مسكح دو وينانيا dabeetana hadduu quraanka xifdiyay yahuuda waxay aaminsan yihiin in ilmahoogana uu wax kale ka xifdinayo diyaarad ha soo saaro lacag ka sameeyo waxana sameeyo laakiin hooyo hadaba adigu intee baan ka fikirnay inagoo muslimiin ah ilmahaaga intaana tuushin barin af turki barin english barin quraanka horta xifdisi taamis weydiinay adigu intaad jaamacad galin intaad waxba sameeynin intaad business sameeynin intaad everything before intaad waxba sameeynin quraanka xifdi wali ma isweydiinay هذا القرآن كبرته هذا القرآن كحفظه نلاشاد واحد نقولنا ميسرة نلا الفضول بين نقولنا سيدو كلنا واحد كستين برته ويكون فضول هاي هذا بقى عرورتنا إنه تاجلان هاي أما فهم كي هالنقطة أما أخلاق ضد هالنقطة أما محي هذي واحد كستو مشكلة عرضتم كتير مع ده واحد لقوا حلين كروا قرآنك because قرآنكم محي النبي صلى الله عليه وسلم مركي عايشة لويدي لقوا يري كور النبي أخلاق دي سمحي تري كان خلقه ها القرآن أخلاق دي سوى قرآنك marka ilmahaaga inaad ku beeskarayso noloshaad ku beeskarayso quraanka guriga quraanka ku shidid ilmahaaga taa quraankii hooyooyin waxa laga yaabaa inaad tirahdaan ilmuhu 5 cisho tagaya iskuul markuu iskuul ka yimaadana tuushin buu galayaa quraankii wallahi waqtiba uma hayo no quraanka inaad waqti gelisaa uga weyn wax kasta haddaad tuushinka hadduu iskuul ka yimaado 2 ama 3 intaana tuushin gelin ka fikir quraanka ilaahay muxuu ka bartay hadduu istideeda iskuul galo ilmahaaga 6 subaxnimo adigu guriga ugu sii dhig quraan marka inaan horta time galna wali uma inaan sameyn awlaadeena ama gurigana time table jadwal looma sameeynin jadwalkii quraanka hooyo ilaahay kuma weydiinay ilmahaaga markaad qiyaamaha kullukum raaci wa kullukum mas'uul an raa'iyatihi nabiga sallallahu alayhi wasallam laguma weydiinay ilmahaaga physics ma bartay biology ma bartay tuushiki ma bartay afturkigi ma bartay wax ma bartay laakiin waxa la weydiinay quraanka maxaad u barweeday su'aashaas weyno wada taala marka saan kitaabka ilaahay kor ugu qaadno madrasadan sababtii ugu weyneeda loo faray waxay tahay xaafadeena jankaaya iyo aageena oo dhan in madrasadan ay idin furnaanaysa maxay mar kasta waqti kastood haleelaysan inaad timaadaan hooyooyinka waxaad ku mashquulnaa awlaadii baan iskuulka geynaa waxaan ba sameynaa awlaad haday 8 iskuulka tagaan 8 ilaa 3 soo iskuulka kuma maqna soo intaas oo dhan nagama maqna hooyo saacad kasta wad iman kartaa halkan hal saacad iska soo go imo quraanka dhigo iskuulgaaga iska qabo inta awlaadu ka maqantay adigu time gali hadda adigu timaado quraankii barato ilmahaagu kugu dayanaya hooyooyinka waxaan leeyahay maxay ahayd intaad ilmahaaga madrasada u dirin ilmahaagu ha arkay inaad adigu madrasadii tagaysid inaad adigu madrasadii jeceshahay isna uu jecnaanaya marka sababtooda waxa weeyaan quraankiina kor loo qaado talabaad ee loo furay halkan waxa weeyaan in ummadeenu isku timaado hadii la isku yimaado oo la sheekaysto oo diinti laga sheekaysto oo maxay ahayd wadankii laga sheekaysto waxba ka dhasha imaatinka waxba ka dhasha marka inaan helna xaafadeena markis ay leeyihiin oo culimadii inoogu yimaadaan imika konton dumar oo qaado iyo konton caruur oo lecture loogu sameeyo oo bishiiba hal mar aan lecture ku sameysana maxaa ka wanaagsan waa hadafyada kale loo sameeyay kamid tahay hadafka saddexaad loo sameeyo waxa kamid ah inaan hankeena ku korino hooyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam soo laabanayo aabo nabi maxamed ma soo laabanayo inaga ayaa ah maxay haday safiiradii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo diintan ku weesiday wadankana ay nimidnay dhaqan buu leeyahay akhlaaq buu leeyahay inagu Soomaali baanay waan hagooganahay muslimiin baanahay waxa inala muslim ah oo diinta inala sita gabar madaxan qaawan shaaris wal xiran oo socota sidaad wada socotaan masaajidka galaysa iskaaf bi qaadanaysa madaxay saaranaysa way tukanaysa adiguna kan adigoo xiran ama xijaabka xiran baad socotaa meel kasta waa tagaysa waxay ku oranaysaa islaam banaadna islaam baad sulubadina islaam moodanyihiin waxa la inaga rabaa hadaba gabadhaas shalmada iskaafka marka masaajidka tagta xiranaysa ayaa waxa la inooga baahan yahay inagoon dagaalin inagoon dilin diinta inaan u qurxin oo diinta gaarsiino waa sabab halkan loo furay kamid ah ma aha inaan turkiga ku noolahay aqaamadana waa sidana caruurta iskuul bay tageen maxaad
gashatay dadkan maxaan dalkan gashanay inaan dhaqan wanaagsan laynooga daydo waa sababihii halkan loo furay in awlaadii dhaqan fiican la geliyo awlaadeena yar waxay tagayaan iskuulada dhigtaan turkiga la dhigtaan Soomaha in iskuul halkan loogu sii dhigo turkida u tagayso sida ay saawla dhaqan muslimiinta saasan nahay inagu muslimiin baa wada nahay sida yaani wanaagii xiriirkii wanaagsanaa ee maxay islaamnimada si ayagina ay ugu daydaan waa sababta maxay halkan loo furay ilmaha yar markuu iskuulka tago ee tuushingal uu dawaqaya in maalmaha qaar halkan caruurta la keeno oo ku faakahaystaan yaani faaksan waxa laga wada ku nafisaan inta iska yimaadaan loo sheekeeyo sheekooyinka caruurta looga sheekeeyo caruurtii ay nafisaan hooyooyinkii marka qaar guriga hadii hadii habeen ku jiraan way yar dawaqayaan in halka yar yimaadaan maxaadra yar loo shido iska nafisaan waa sababaha maxay halkan loo furay marka dhammaan inta joogta xaafadan degan cid kastoo noo iman karta waxaad leenahay maxad ku idin furan yahay wax weyn oo wanaagsan baana yaala imaada gacmooda jirbay wax ku gooyaan aan wada jirno dhaqan wanaagsanna turkidu hay naga aragto waxa la inagu yaqaana buuq iyo qayla bisoomaha hal ay naga arka dad diinta jecel oo xijaaban oo diinta doonay inay nahay naga arko